السلام عليكم صاحبيال halkan waa kaalkan inaad kaga barateen barashada cilmiga kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo saxo saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka soo dhawo marka la daawade dabcan muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka ugu fudud ee loo hagaajiyo isla markaana loo saxo saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka mararka qaar waxaa suuragal ah inaad aragto kombiyuutarkaaga saacadiisa ama taariikhdiisa oo qaldan xaaladaas oo kale marka ay ku qabato waxaad u baahan tahay inaad saxato si aad u saxatana waxaad u baahan tahay inaad raacdo tallaabooyinkan soo socda marka hore waxaad imaanaysaa taaska baarka gaar ahaan dhanka midig oo ay ku taalo saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka oo halkan ah dabcan hadda saacaddaynu waxay sheegaysaa inay tahay 2 duhurnimo iyo 16 daqiiqo halka taariikhduna ay tahay 18 bisha 7 sanadka 2020 balse waqtiga saxda ah ee hadda la joogo waa 4 galabnimo iyo 53 daqiiqo haddaba si aan waqtigan qaldan u saxno annaga oo dul joogna saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka waxaa touchbar-ka ama muusiga kombiyuutarka aad ka taabataa right click kadib waxaad raadaysaa meel ay ku qoran tahay adjust date or time waa halkan ku dhufo dabcan waxaa lagugu soo xirayaa qaybtan halkan waa date and time waana taariikhda iyo waqtiga kombiyuutarka halkan waa current date and time waa taariikhda hadda la joogo iyo waqtiga hadda la taagan yahay kombiyuutarkeena hadda wuxuu haystaa saacad ah 2 duhurnimo iyo 17 daqiiqo maanta waa sabti bisha waa bisha 7 ee July 18keeda sanadkana waa 2020 dabcan waa taariikh qaldan haddaba si aad u saxdo waxaad haysataa 2 doorasho oo mid ay tahay in si automatic ah loo saxo taariikhdan saali waxaad ku dhufanaysaa set time automatically hadda waa off waxaad ka dhigaysaa kaliya on kadib waxaad aragtaa waqtiga in halkan saacadda iminka la saxay oo ay taariikhdu tahay 21 bisha 12 sanadka 2023 saacadduna waa 5 galabnimo iyo 1 daqiiqo balse haddii aad u baahan tahay inaad gacantaada ku saxato waqtiga kaliya halkan automatic ah ayaad ka dhigaysaa off kadibna waxaad imaanaysaa qaybtan hoose ee ku taalo change oo ah bedel taariikhda iyo waqtiga saacadda kadibna halkan ayaad gelinaysaa bisha la joogo halkanna waa maalinka la joogo qaybta ugu dambeysana waa sanadka lagu jiro qaybta hoosena waa timekii halkan waa saacadda qaybtanna waa daqiiqadda qaybtanna waa gelinka dabcan gelinkana waxaa loo qaybiyaa 2 qayb oo kala ah PM iyo AM PM waxay u taagan tahay gelinka dambe waan laga bilaabo 12 duhurnimo ama 6 saac ilaa laga gaaro 12 saacada dhexe ama 6 saac habeenimo halka AM-na ay tahay gelinka hore gaar ahaan 12 ama 6 saac habeenimo ilaa laga gaaro 12 duhurnimo ama 6 saac marka dhameysana waxaad leedahay change sidoo kale halkan waxaa loo yaqaanaa time zone waana aaga waqtiga waana qaybta qaabilsan inay isku dabarido saacadaha caalamka waxaa loo soo gaabiyaa UTC oo u taagan Coordinated Universal Time isku dabaridka waqtiga caalamiga ah waxaana halkan ku jira saacadaha caalamiga ay leeyihiin qaar ka mid ah dalalka caalamka ku yaala oo dalalka qaarkood ayaa isku waqti ah sida Soomaaliya iyo Kenya oo kale gaar ahaan magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo saacadoodu ay tahay +3 marka aad qaybtan ka saxaysid waqtiga waxaad u baahan tahay inaad taqaano time zone-ka dalka aad ku sugan tahay sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad bedesho qaabka ay ku soo baxayaan waqtiga iyo saacadda kombiyuutarka waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku taalo date time and regional formatting dabcan qaybtaana waa region ama country waana dalka aad ku sugan tahay ama goobta aad kaga sugan tahay dunida hadda waxaa noo dooran United States oo ah dalka Mareykanka haddaba
si aan u bedelno isla markaan uga dhigno Soomaaliya waxaan ku dhufaynaa qaybtan ay ku taal United States kadib waxaan taabaynaa xarafka S si aan u raadino Soomaaliya kadibna hoos ayaan u soo rogaynaa waana tan halkan ayaan ku dhufanaynaa dabcan dalka aan ku sugannahay goobta aan joogno waa Soomaaliya waxaan isticmaali doonaa waqtiga Soomaaliya qaybtanna waa regional format dabcan waan luqadda ay ku qoran yihiin saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka hadda waxaan noo dooran English gaar ahaan Englishka Mareykanka sida caadiga ah qaybtan luqadaha aadka loo isticmaalo waa Carabi iyo English haddii aan tijaabino Carabiga oo aan ku dhufano mid ka mid ah qaabkan ayuu ku soo baxayaa balse sidiisa ayaan u dhaafi doonaa oo waxaan isticmaali doonaa Englishka looga hadlo dalka Mareykanka qaybtan hoose oo ay ku qoran tahay change date formats waxaa loogu talagalay in laga bedelo qaabka ay ku soo baxayaan taariikhaha iyo waqtiga kombiyuutarka sidaan u bedelnana halkaas ayaan ku dhufanaynaa markii aad gudaha u soo gasho halka ugu horeeya waa kalendarka ama nidaam lagu ogaado taariikhda waxaan loogu magac daray Bob Gregory 13aad kaas oo soo saaray taariikhdan sanadkii 1582 badanaa kombiyuutaradana kaas ayaa lagu keenaa oo sidiis ayaan u dhaafi doonaa godka labaad waa first day of week waa isbuuca maalinta ugu horeyso dabcan reer galbeedku inta badan waxay aaminsan yihiin inay tahay xadda maalinka koowaad balse annaga maalinka ugu horeeya isbuuca waxaa noo ah Sabti marka halkaas waxaan ka dhigi doonaa Saturday qaanad saddexaad waa short date waana taariikhda oo u qoran hab gaaban dabcan qayb badan ayaa ku jiro marka tii kugu fudud ayaad ka dooranaysaa sidoo kale qaybta afraad waa long date waa taariikhda oo dheer isla markaana loo dhigay qaab kala duwan midkii aad ka hesho ayaad saaran kartaa kombiyuutarka qaybta shanaad waa short time waa waqtiga oo u qoran hab gaaban waxaana badanaa halkan ku jira 3 qayb oo kala ah saacadda daqiiqadda iyo gelinka qaybta ugu dambeysana waa long time waa waqtiga oo dheer wuxuu ka kooban yahay sida caadiga 4 qayb oo kala ah saacadda daqiiqadda sekinada iyo gelinka dabcan qaabka aad rabto ayaad u dooran kartaa saacadda iyo data kombiyuutarkaaga habkaas fudud ayaa loo saxaa isla markaana wax looga bedelaa saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka muuqaalkayda maanta halkaas ayaan ku soo koobayaa fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kale muuqaalkan aad like inoo dhahdo tani muuqaalka xiga inta kulmi doona waalkin Cabdirasaaq Cabdullaahi idinku dhaafay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh